الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ugu horeyn walaalahay waan salaamayaa, waxaanan ugu hambaliyeynayaa, naftaydan ugu hambaliyeynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala cumrigeenna noo dheereeyey oo na gaarsiiyey bishan ramadaan ee mubaaraga ah insha allahu tacaala. dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan walaalahay waan wada salaamayaa, waxaan ugu hambaliyeynayaa bishan barakaysan. waxaan naftayda iyo walaalahayba ku waaninayaa in aanu ilaahay u dhowaano, taqwadiisa aanu badinno bishan ramadaan si aad ugu dhowaato rabbiga, si aad caalam alculwi almala'u alaclaa ugu duusho bicamalika asaalix. waa inaad laba shay ku dadaashaa. kan koobaad, faradka ilaahay uu kugu farad yeelay oo soonka ah oo siyaamka ah, inaad ku dadaashid ilaalintiisa iyo magaranaysaa aad ka ilaalisid wax kaste oo burinaya ama ajirkiisa yaraynaya. qof soomay oo cunto iyo cabid iska daayay, hase ahaatee afkiisa aan xumaato ka ilaashanin, wax uu faa'iidaystay oo aan gaajo iyo oon ahayn ma leh. soonka haddaad soontaan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi maalintiina soonka ah rafath iyo hadal xun iyo sakhab iyo hadal dheer iyo buuq iyo dood ha yeelina buu yidhi, ha samaynina. haddii axad kaa gardaraado ama kula dagaalamana waxaad ugu jawaabtaa innii saa'im. taas ayaad ku xusuusinaysaa naftaada iyo kan ku dulminayaaba aad ku xusuusinaysaa inaad maalin soon aad joogto. soonkeenna waanu ilaalinaynaa, waa baalka koobaad. baalka labaad eed ugu duulayso insha allahu ila allahi wa ila alqurbi minhu waa qiyaam iyo salaad inaad tukato habeenkii. farad ma aha, laakiinse waa sunno mu'akad ah oo nabigeenu sala allahu alayh wasalam aad iyo aad noogu taxriidiyey. wuxuu yidhi nabigeenu sala allahu alayh wasalama, man saama ramadaana, ninkii sooma iimaanan waxtisaaban, iimaan iyo tirsasho ajirka tirsanaayo, qufira lahu maa taqadama min danbihi, dembigiisiiba oo dhan uu hormarsaday ilahay waa u dhaafayaa. man qaama ramadaanana wuu yidhi, qofkii ramadaan sidaasoo kale istaaga habeenkiina ilaahay isna waa u dembi dhaafayaa. marka sidaa darteed qiyaamuleyl baynu ku dadaalaynaa. arrinta tan hadda soo darisay ee cudurkan uu la yimid ee masaajidada laisu diiday ee masaajidadii la xidhay yayna keenin in aanu ka tagno qiyaamuleylka fii ramadaan. taraawiixda waa tukanaynaa, guryaheenaan ku tukanaynaa. bal sida uu nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalama uu tilmaamay, culimmadu waxay leeyihiin afdalu salaati salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba. ayayba soo hosgelaysaa oo taraawiixduba gurigayba ku fadli badan tahay. marka maadaama gurigii jooga la yidhi, taraawiixda gurigaynu ku tukanaynaa, qiyaamuleylka gurigaynu ku tukanaynaa insha allahu tacaala. waxabada haddii aanu qur'aan ku akhrino oo jus ku akhrisanno oo ramadaankii mar qur-aanka aanu dhammayno aad bay u fiican tahay. haddii kale dhib male, wixii ilaahay noo fududeeyo ayaanu ku tukanaynaa. sidoo kale ikhwaani akhawaatii, tilaawada iyo qur'aanka akhrintiisa waa bisheedii weeye. waa shahru lqur'aan, shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. qur'aanka waxaanu ka badsanayna male, isagaanu ugu badsanaynaa. weliba hadda oo laysu soo xidhxidhay oo layidhi guri hala fadhiyo oo shaqo badan iyo caadaad fara badan oo casuumada iyo inta ka baxaya, maalin eeddo u tag, maalin habaryar u tag, maalin inta ka baxa, maalin hebela, meeshaan azab ka jirta, meeshaan casuum, wixii oo dhan sooma lama joojin. dee fursaad haysataa imika aqbil calaa kitaabillaahi aqri oo wardi badan yeelo oo ma garanaysaa yani haddii alla ku waafajiyo. wallaahi dad baa maalintii qur-aanka dhammayn jiray. annaga hadda sanadkii hore qolooyin nala ictikaafsanaa masjidka, kulli yom qur-aanka waa dhammayn jiray. kulli yom intuu soo bilaabuu dhammaynaya. dee waqti kale ma hayo, waqti uu ma garanaysaa yani lahwi iyo meeshii dhan waa ka baxeen. haddii ilaahay kuu fududeeya saa yeel. haddii aad 3 beri marku dhammayn karto waa hagaag. haddii aad 4 beri marku dhammaynayso, haddii aad 10 cisho mar dhammaynayso,
marka waxaan aad iyo aad isugu waaninaynaa insha allahu tacaala qur-aanka wardigiisa inaanu badsanno mudaarasadiisa barasho hadday noqoto fiimaa baynana annagoo can ariiq adawaadkan iyo nadkan can ariiq albucd kala fogaanshaha ka faa'iidaysanayna waxaan ilaahay uu noo sahlay oo maaragtay ajizadana waanu isbaraynaa qur-aanka insha allahu tacaala adigu shahrulqur'aani weeye qur-aanka aynu ku dadaalno dikriga kalena ayaanaan yani u dayma la'aanino تسبيح iyo tahliil iyo istighfar iyo salliga nabiga alayhi salatu wasalam kulluhu waa barakaat ujurtuna waa mudaacafaat waa mawsim al-arbah wa ilaahi baan u dhawaanayna subhanahu wa ta'ala mawsim insaanku uu qafla la yimaada maaha oo maaragtay uu ilooba maaha taasaynu isku wada waaninayna kulligeen insha Allah ta'ala tawfiiqna Allah nawaafajiyo dambigana Allah dhaafo ki waalidiinteena Allah dhaafo ilaahi waxaan ka baryaynaa insha Allah musiibadan ummadda ku habsatay in ilaahay naga dulqaado wabahan ilaahay naga dulqaado ilaahay si degdega masaajidadeeni iyo khayraadkeeni dib ilaahay noogu furo inta hadda aan arintan ku jirnana ilaahay uu naga dhigo kuwa ka faa'iideysta ilaahay ugu dhawaansho badnaada in ilaahay naga dhigo innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.